wanaagsan idil ahaantiin baa meel kasta oo dunida daafaheeda naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkii rayga dadweynaha oo toddobaadkan hal su'aal la dhexmarinay bulshooyinka ku dhaqan gobolka Togdheer haddaba aan soo wada daawano si ay dadkaas uga soo jawaabaan su'aalooyinka agora wala ku soo dhaweynay adigoo magacaaga igu bilaabaya Suldaan Ciise Suldaan Salba Kuutiiniya soo Kuutiiniya waxay tahay sidee baad u aragtaa xilka loo magacaabay gudoomiye xirsi anoo ka soo horjeednaniyo anoo reer raagamanihiiniyo wayna dhaafinayo aad baad u maasantay ugu horreey wala ku soo dhaweynayaa adigoo magacaaga igu bilaabaya magacay walaal waa Mawlid Cilmi Mawlid Salba Kuutiiniya soo Kuutiiniya waxay tahay sidee baad u aragtaa xilka loo igmaday gudoomiye xirsi wadutaada sanaa wadu hambareeyeen oo codeyn doona hadii la dadana aad baad u maasantay wadana ahaa muddo hore aad baad u maasantay bishkaana Somali TV adigoo magacaaga igu bilaabaya waad mahadsantahay magacaygu Mukhtaar Silaan oo dhawahay waa tahay Mukhtaar Silaan Salba Kuutiiniya soo Kuutiiniyana waxay tahay sidee baad u aragtaa xilka loo magacaabay gudoomiye xirsi waan soo dhaweynaa hadaan hay bulshada magaalada Burco Xirsi Cali Xaaji Xasan in noqdo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee 5 sanadood soo socda insha Allah xisbiga mucaaradka wadani sanadkan wuxuu noqon doonaa xisbiga guusha shacabka Soomaaliland insha Allah taala aad baan ugu hambalyeynaa aad baan adigana ku mahadcelinayaa horeen wala ku soo dhaweynayaa adigoo magacaaga igu bilaabaya waa dhaweey walaalaad baan maasantay magacaygu waa Raxmed Iftaax way Raxmed Salba Kuutiiniya soo Kuutiiniyana waxay tahay sidee baad u aragtaa xilka loo magacaabay gudoomiye xirsi wallahi aad bay wanaagsan tahay meel wacanna waa la abaaray marka hore adeer xirsi baan dhigi jiray laakiin imika aab xirsi baan dhahay aad baad maasantay walaal hore wala ku soo dhaweynay adigoo magacaaga igu bilaabay wala waan dhaweey magacaygu waa Farduus Cabdilaahi Cismaan waa tahay su'aalba Kuutiiniya kaftan su'aasha Kuutiiniyana waxay tahay sidee baad u aragtaa xilkan loo magacaabay gudoomiye xirsi waxaan u arkaa wala anagu ku faraxsanaa xilkan loo magacaabay gudoomiye xirsi wax qabadkiisana waan leeyahay doona aad baad maasalaabay magacayga Ismaaciil Awl Jaamaal ah waati Ismaaciil su'aal baan Kuutiiniya su'aashan Kuutiiniyana waxay tahay sidee baad u aragtaa xilka loo magacaabay gudoomiye xirsi xilka loo magacaabay aad iyo aad waxaan u arkaa inuu ugu haboon yahay xisbiguna uu maanta guuleystay waxaan u maleynayaa maanta xisbiga wadani guushii dalka inuu hantiyay isagu aad baad maasantahay ogeeg barnaamijkeena rayga dadweynaha oo toddobaadkan hal su'aal aan la dhexmarinay dadyoga ku dhaqan gobolka Togdheer wad wada arkayseen siday dadyoga uga soo wada jawaabayeen su'aashan barnaamijka waxay idila socodsiinaysay anigoo Ifraax Abdirahmaan waxaana dhanka farsamada igu hawlanaa Sadam Saciid Xasan Sadam Baraarujiye intaynu barnaamijka la mid aynu ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo fi amaanillah